السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتنا دمان waxaan halkan idinku soo gudbinayaa sheekadu waxa ay ku saabsan tahay saaxiibka. Daribaa waxaa wada noolay qoys oo uu aabbo u ahaa oday caaqil ah. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa caruurtiisa isugu yeeray si uu ugu digo saaxiibada xun. Waano dheer kadib ayuu tusaale usoo qaatay. Mid ka mid ah caruurtiisa ayuu suuqa cambe uga diray. Cambihii ayaa loo keenay, waxa uu ku daray hal xabo oo jiran ama buko. Waxaana caruurtiisa ku yiri, meel ayaan ku kaydin doonaa, kadib waxaa dhacay ayaan wada arki doonaa. Salad ayuu ku riday. Maalmo kadib ayuu caruurtiisii ku yiri, saladii ii keena aabbo. Markii loo keenay ayuu ku yiri, eeg waxa ku dhacay cambihii kale ee fiicnay. Waxaa qurmiyey oo keliya hal xabo oo horay u qurunsanaa. Sidaa ayuu saaxiibkaaga xunna noloshaada saamayn ugu yeelan karaa. Mahmaah deriskaaga caddaan iyo madow intii ka ahayn wuu ku qabadsiiyaa. Marka saaxiibkaaga xun waxa uu ku horseedaa mustaqbal